أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا الله سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا رب سبحانه وتعالى إنه ينقنا الدوام الدبا وإنه حقيقينه ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa mid aan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku yihi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegay masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhahan yaa abaa hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo wakula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey naftaadaa maanta kuugu filan عدك حسابي أديكو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu nahay addoome ilaahay oo qirsan ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay kayna abuuray ina leh isla markaana ina maamula oo axwaasheena iyo arrimaheena oo dhami gacantiisa ay ku jiraan. ilaahay baa subxaana wa tacaala iyadoo xaqiiqataasi ay tahay qof waliba uu dareemaya haddana si gaara inoogu sheegay. wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi isagoo la hadlaaya bani aadamka, insiga, jinka, wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun. wuxuu ilaahay tilmaamay jinka iyo insigaba inuu ilaahay abuuray. wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun, idinka iyo wax allaala waxaad samaysaan, wax yar iyo wax weyn, wax dheer iyo wax gaaban, wax aada u muuqda iyo wax qarsoon, ilaahay baa subxaana wa tacaala idin abuuray. ilaahay baa subxaana wa tacaala saasoo kale abuuray kaa-inaadka ama jirayaasha inaga sareeya, kuwa inaga hoosiya, kuwa dhinacyada inaga xiga, kuwa aynu aragno iyo kuwa inaga qarsoon, kuwa aynu ognahay iyo kuwa cilmigooda aynaan hayn intaba. mana aha ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisu kuwa aynu koobi karno. ilaahay baa subxaana wa tacaala caalamkaasi uu abuuray maamula, cid la maamushaana ma jirta rabbi subxaana wa tacaala ama maamulka caalamkan ka caawisa. qul illaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa wa tanzicu lmulka miman tashaa. ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala waxaad tidhaha nebi maxamedow iyo qof kastoo muslimowba, ilaahay baa iskale mulkiga, ciduu doonana ilaahay baa siiya, ciduu doonana ilaahay baa subxaana wa tacaala ka siiba. ilaahay baa le maamulka caalamkan oo cid la maamusha aanay jirin. waxay nafeenu jecel yihin iyo waxay dhibsanayaan, wax allaaliyo waxaa adduunyadan ka dhacaa waa wax ku dhacay amarka ilaahay subxaana wa tacaala. yudabiru اlamra min aلsamaai ilى alard. wax ilaahay samada uu ka soo xukumay ayaa dhulka dushiisa ka dhacaya. ilaahay baa subxaana wa tacaala wax allaaliyo waxa nicmo adduunyada dusheeda aynu ku haysano, mid diineed iyo mid adduunyo, mid inoo muuqato inoo tirsan iyo mid inaga qarsoon oo aynaan arkahayn, intaba ilaahay baa subxaana wa tacaala bixiyey. wamaa bikum min nicmati famin allah. wax allaala waxaad nicmo haysataan waa mid ilaahay uu idin siiyey, xagga ilaahay bay subxaana wa tacaala ay ka timi. wuxuu ilaahay arrimahaasi inoogu sheegaya inuu ina abuuray, inuu ina leeyahay, inuu ina maamulo, inuu ina arsaaqo, inuu ilaahay subxaana wa tacaala wax allaala waxaynu nicmo haysano iyo waxa wanaag aynu tirsanayno uu ina siiyey. wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala inoogu sheegayaa si aynu u ogaano, aynu u dareenno oo quluubteenna ay u gasho xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu leeyahay weynidiisa. waxay bani aadamka oo dhami qirsan yihiin cidda wanaag kuu samaysa, cidda wax kuu tarta iyo cidda kuu nicmaysaa inay xaq weyn kugu leeyihiin. maxaad u malaynaysaa allah subxaana wa tacaala ku jirsiiye ku abuuray adigoo aan jirin adduunyadan ku keenay, ee weliba kaa abuuray shay aada iyo aada u qiimo daran oo haddii la odhan lahaa waxaasi bani aadama ka soo baxaya ama makhluuq noola ahi dadka in fara badani aanay rumaysteen haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala indhahooda aanu tuseen. maxaad u malaynaysaa allaha kulaba, adiga kuleh, naftaada leh, qalbigaaga leh, maxaad u malaynaysaa allaha nicmo kasta oo aada haysato, wanaag kasta oo aada tirsanayso allaha ku siiyey, dhibaato kasta oo kaa maqan allah subxaana wa tacaala kaa difaacay. shaki kuma jiro, qof wala caqli liina wuu garanayaa allahaasi xaqa uu kugu leeyahay inuu yahay acdamu alxuquuq, xuquuqda ta u weyn. ilaahay subxaana wa tacaala maadaama uu sidaasi yahay wuxuu marka koowaad xaq inoogu leeyahay aliqraaru biwaxdaaniyatihi, inaynu qiro ilaahay subxaana wa tacaala kelinimadiisa, inuu ilaahay subxaana wa tacaala la gaar yahay inuu yahay alkhaaliq ka kelidii caalamkan abuuray, alaa lahu alkhalqu waalamr, inuu ilaahay la gaar yahay mulkiga iyo lahaanshaha, maamulka iyo tadbiirka, inuu ilaahay la gaar yahay cibaadada. waa ujeedada ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo abuuray.
ilaahay subxaana wa tacaala muu odhan icaabuda oo qura. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay cibaadada uu inaga doonaya inay tahay cibaado isaga u gaara. wa hada macna laa ilaaha ila allah. laa ilaaha ila allah macnaheeduna waa sidaa. ilaahay baa kelidii ah ka cibaado xaq u leh, maadaama kelidii uu yahay alkhaaliq, almaalik, almudabir, alraasiq. cid kastoo ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn oo la caabudo, cid sare iyo cid hoose, cid magac iyo maamuus leh iyo cid aan intaa midnaba aan lahayn, cibaado xaq uma laha. waayo sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada uu ku mutaystay ayaana ilaahay subxaana wa tacaala la wadaagin. ilaahay in la keliyeeyaa subxaana wa tacaala waa waajibka u horeeya, waana waajibka u weyn, waa ujeedada ilaahay samada iyo dhulka u abuuray, waa arinkuu daraaddii u soo dejiyey kutubta, waa arinkuu ilaahay subxaana wa tacaala rususha oo dhan uu la soo diray. walaqad bacaثnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wاjtanibu طaaguut. ummad kasta ilaahay wuxuu yihi waxaanu ka soo dhex saarnay rasuul. rasuulkaas muxuu ku baaqaayey? laba qodob: ilaahay caabuda, cid kastoo ilaahay sokadii la caabudana ka fogaada. ha aaminina inuu cibaado xaq u leeyahay, hauna samaynina oo ha u ogolaanina. towxiidku waa ka adduunyadanu ay ku hagaagayso ee dhib walba lagaga baxaayo. towxiidku waa ka ay ku jirto badbaadadu, isagaa janno lagu helaa, isagaana naar lagaga badbaadaa. oo qofka towxiid la-aan dhinta ee ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyaa, qofkaasi wuxuu ku xukuman yahay inuu naar galo, jannadana uu ka qado. ilaahay baa subxaana wa tacaala in fara badan xaqiiqada noocaasa ku sheegay fi lqur'aani alkariim. ilaahay keliyeyntiisu waa ta qur-aanka oo dhami uu ka waramayey bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa. qur-aanku wuxuu ka waramayaa faritaan ilaahay addoomaha uu faraya inay keliyeeyaan, amar ilaahay oo amraayo shirkiga iyo isaga iyo cid kale inay wax ka dhexaysiyaan inay ka fogaadaan oo ay ka tagaan. waxay leeyihiin dadka towxiidka xaqiijiyey adduunyada intay joogaan iyo aakhiro marka ilaahay la horgeeyo. kuwa towxiidka ka tega shirkiga ku dhacay, caaqibada iyo cidhibta xun arrinta ay uga dhaadhacayaan adduun iyo aakhiraba. furuucdii towxiidka iyo waajibaadkii raacayee ka dhalanayey. shirkiga waxaa la idhaahdo xumaanihiisa iyo foolxumada u leeyihi iyo raadka xunxuna qofka uu ku leeyahay adduun iyo aakhiraba. ilaahay baa towxiid ku bilaabay: alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maaliki ywm اddiin. ilaahay baa towxiid ku gebagabeeyey: qul acuudu birabi الnaas maliki الnaas ilaahi الnaas min shari اlwaswaasi اlkhannaas ilى aakhiri اlaaya. waxay calaamad u tahay inta labadaas suuradood u dhexaysaaba towxiid inay ku saabsan tahay. waa wixii u weynaa uu ka shaqeeyey rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam, bilowgii dacwadiisa iyo dhammaadkeedii, markuu dhibanaa iyo markii uu nabadda iyo barwaaqada uu ku jiray nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam, markuu caafimaadka qabay iyo markuu xanuunsanayey, markuu dagaal iyo duulimaad ku jiray iyo markuu axbaabtiisii iyo asxaabtiisii dhex joogay, iyo madiinadiisii magaaladii uu jeclaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam. saacadihii u dambeeyey ee noloshiisa ayaa uu ku baaqayay ilaahay in la keliyeeyo, ummaddana uga digaayey wax kastoo sabab ugu noqon kara inay shirki ku dhacaan, iyo waddo kastuu u soo mari karo oo uu ka xidhayo albaab kastoo uga soo geli karo. wuxuu ahaa naasix amiina, mid ka talinaya ummadda wanaaggeeda, khayrkana la jecel, inay badbaadaana aada iyo aada qalbigiisa ay ugu weyn tahay, ummadda wixii dhibayana isaga aada iyo aada uu dhibayo. ilaahay subxaana wa tacaala maadaama sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahay oo ina abuuray oo ina leeyahay oo ina maamulo oo nicmiyo wanaag kasta uu ina siiyey, wuxuu xaq inoogu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala inaynu noqono addoomo dhaba oo aynu xaqiijinno ujeeddada ilaahay inoo abuuray. ilaahay inoomu abuurin inaynu cunno aynu cabno oo aynu seexanno aynu soo toosno oo adduunyadan aynu dhisno oo xoolo aynu soo xerogelinno. taa makhluuqaad badan baa inala wadaaga. xooluhu way cunaan, way cabbaan, way seexdaan, way soo toosaan, way tarmaan sideenna oo kale. adduunyadana way nala joogaan, sayna u dhaqdhaqaaqaynana way u dhaqdhaqaaqayaan oo waa u socdaan. haddii nolosheennu inta ay ku koobnaato waxay noqonaysaa nolol aan noloshooda waxba dhaamin. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagaga sharfu inagaga sarraysiiyey in ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo dooray inaynu noqono addoommo loo diray ilaahay amarkiisa inay fuliyaan.
addoomo loo diiday wax allaale waxaanu ilaahay raalli uga ahayn, addoomo lagu kalifo dusha laga saaray subxaana wa tacaala inay caabudaan. wamaa khalaqtu ljina waalinsa ila liyacbuduun, ilaahay baa jin iyo insi wax kale umaan abuurin inay caabudaan mooyaane. waxa kale oo dhami waa kaabayaashii cibaadada, waana wixii suurto gelinayay ilaahay subxaana wa tacaala inaad caabuddo oo ujeeddadii uu ku abuuray aad ka soo baxdaa waa ta lagu gaarayay sharafta adduunyo iyo maamuuska aakhiro. ilaahay baa subxaana wa tacaala nebi maxamed oo rasuulkiisiiya ku ammaanay inuu ahaa addoon ilaahay meelo badan oo ka mida qur-aanka kariimka ah. subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah tabaaraka aladii nazla alfurqaan calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira. haddii ay jiri lahayd addoon ilaah in loo noqdo darajo ka saraysa oo qof uu gaari karo, ilaahay subxaana wa tacaala meelaha iyo xaaladaha ayaa rasuulkiisa uu ku ammaani lahaa. sharafta u saraysa ee qof adduunyada uu gaadhaa waa yakuuna cabdan lilah. waa ta keentay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inuu idhaahdo haddaad doonaysaan inaad ammaantaan faquluu cabdullaahi warasuuluh, waxaad tidhaahdaan muxamed waa addoonkii ilaahay waana rasuulkii ilaahay. haddii ay jiri lahayd ammaantaa ka saraysa oo saxa oo nebi maxamed inaynu ku ammaana ay noo bannaan tahay, rasuulku inagama qariyeen, wuu inoo sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam. cibaadadu waa mid macno ballaadhan, maaha salaada iyo soomka iyo xajka iyo inaha shacaa'irta iyo calaamadaha waaweyne muuqda ee dadku ay isla yaqaaniin oo dhana. cibaadadu waa qofku inuu u noolaado sida ilaahay uu ka doonayo ee rabbi subxaana wa tacaala raalli gelinaysa. cibaadadu waa qofku inuu noqdo mid ilaahay jecel oo ilaahay qalbigiisa ku weyn yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ka xishoonaya. cibaadadu waa in la sameeyo wax kastoo ilaahay uu kuu diray. waxaa cibaado weyna waxyaabaha xaaraanta ah ee naftu ay jeceshay macaansanayso marka aad isa soo gaadhaan ilaahay daraaddii inaad uga tagto. qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam wataqi lmaxaarima takun acbad annaas, iska ilaaliyo ka fogow waxa ilaahay uu kaa mamnuuce uu kuu diiday, waxaad noqon doontaa dadka ka u cibaadaysiga badan. waa baab dhan oo ka mida abwaabta cibaadada oo dad fara badani ay moogan yihiin. alcibaada waa inaad u noolaato sida ilaahay u jecel yahay ee ilaahay subxana wa tacaala raalli gelinaysa, inuu noqdo hadalkaaga oo dhami mid ilaahay raalli gelinayo on ka cadhaysiinahay, dhaqankaaga oo dhami sidaas oo kale, waxa qalbigaaga ku jira, waxaad carabkaaga ka odhanayso iyo waxaa xubnahaagu dhammaantoodba ay ku dhaqdhaqaaqayaan. cibaadadu waa mid ay tahay qofka inaanay xaaladina aanay ka mashquulin. wuxuu uhi mujaahid oo taabiciya saxaabada raggii soo gaadhay radia allahu canhu waraximahu, ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama addoomihiisa markuu xisaabinayo waxaa la horgeynayaa mid ahaa boqor hani ah xoolo badan haystay iyo mid aada u xanuunsado xanuun lagu mashaqeeyey adduunyada intuu joogay, iyo mid addoonnimo ilaahay uu ku imtixaamay oo dad kale addoon u ahaa. markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku odhanayaa kii boqorka ahaa ee haniga ahaa maxaa kaa mashquuliyey cibaadadeeda? markaasaa wuxuu odhanayaa xoolihi aada siisay ilaahayow. markaasaa la tusayaa nebiyullaahi sulaymaan oo la odhanayaa adiga iyo nebi sulaymaan kiinaba hanisanaa. markaasuu odhanayaa sulaymaan. markaasaa lagu odhanayaa haddaba sulaymaan, nebiyullaahi sulaymaan haninimadaasi kamay mashquulin cibaadada ilaahay subxana wa tacaala. waxaa loo yeedhayaa kii xanuunsanayey, soo odhanayaa maxaa kaa mashquuliyey cibaadadeyda ilaahay subxana wa tacaala? markaasuu odhanayaa ilaahu xanuunkaad igu imtixaanta ad igu mashaqaysay. markaasaa la tusayaa nebiyullaahi ayuub oo la odhanayaa xanuunka adiga adduunyada kugu helay iyo ka nebi ayuub lagu imtixaamay keebaa daraa? soo odhanaya ka nebi ayuub lagu imtixaamay. markaasaa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu odhanayaa xanuunkaasi haddaba kamuu mashquulin inuu caabudo cibaadaadka noocyooda kala duwan. kii addoonnimada ku marmarsooday ayaa waxaa la tusayaa nebiyullaahi yuusuf. markaasaa lagu odhanayaa adiga iyo nebi yuusuf addoonnimada idinku dhacday teebaa daran? markaasuu odhanaya te nebi yuusuf ku dhacday. markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa haddaba nebi yuusuf arintaasi kamay mashquulin inuu caabudo. taa macnaheed waxa weeye xaalad kastoo addoonku uu ku jiro, hadduu caafimaad qabo, hadduu xanuunsanayo, haddii faqri uu hayo, haddii xoolo u haysto, hadduu madax yahay,
hadduu yahay qof loo taliyo xaalad hadduu rag yahay, hadduu dumar yahay, hadduu yar yahay, haddii uu weyn yahay, mar walba waa addoon ilaahay oo ay tahay cibaadadu sida ay tahay inuu uga soo baxo faral iyo sunnaba. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xaq inoogu leeyahay inaynu u mahadnaqno oo aynaan nicamkiisa qarin oo aynaan dafirin. ilaahay subxaana wa tacaala in badan buu inoogu sheegaa fi lqur'aani alkariim nicamka wayna siiyee dhinac walba inaga xiga oo haddaynu isnaa tira koob aynaan tirin karin. wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. nicamka ilaahay haddaad isku dayana tirisaan ma tira koobi kartaan. macnuhu waa maxay? allah nicamka idi siiye jeclaada, nicmooyinkaasi u qira, allahaasi weyneeya, allahaasi ammaana, allahaasi amarkiisa qaata. waxaanu ilaahay ballan qaadaya haddii nicmada looga mahadnaqo inuu ziyaadinayo u kordhinayo. lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid. mar kasta oo nicmo ilaahay uu kuu kordhiyo waa inaad siyaadsato cibaado, wax ilaahay raalli geliya oo rabbi uu ku farxo oo uu jecel yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala adigana raalli uu kaaga noqdo. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xaq inoogu leeyahay inaynu mar walba xusno oo marnaba aynaan ilaabin. qofka muslimka ah ee qalbigiisu ilaahay uu ku xidhan yahay ilaahay subxaana wa tacaala marnaba ma ilaabo. nebiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah hormoodkii ummadan xagga iimaanka, xuska ilaahay, cibaadada noocyadeeda kala duwan oo ka soo baxay waajibkii ilaahay u diray, waxay tihi caaisha radi allahu canha kaana yadkuru اllaha calى kuli axyaani. xaalad kasta ilaahay buu subxana wa tacaala xusi jira. addoonku wuxuu ka mid noqon karaa kuwa ilaahay in badan xusa marka uu ilaahay xuso isagoo taagan, isagoo fadhiya, isagoo jiifa, isagoo soconaya, isagoo aan soconahayn intaba. markaasuu noqon kara min adhaakiriin allaha kaiira wاdhaakiraat, kuwa ilahay uhi acadda allahu lahu makfirata wa ajran cadiima. ilaahay baa u diyaariyey dembi dhaaf iyo ajar aada iyo aada u weyn. dikrigu waa xidhiidh toosa oo addoonku ilaahay subxaana wa tacaala uu la leeyahay. waa cibaado fudud oo haddana weyn. waa cibaado addoonka carabkiisa ku sahlan laakiin miisaankiisa aada iyo aada ugu culus. waa cibaado dawo ka ah xaalad kastoo adag oo addoonka soo waajahda. waxay dawo ka tahay murugada iyo warwarka. alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub. waxay dawo ka tahay xaaladaha adag ee addoonku uu soo maro oo nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii uu ku dhaco wax warwar keena ama murugo iyo walbahaar wuxuu odhan jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa xayun yaa qayuum biraxmatika astagiith waaslix lii sha'nii kulah walaa takilnii ilaa nafsii طarfata cayn. allaha nool ee tiisa iyo addoomihiisaba maamulow, raxmadaadaan gurmad kugu weydiisanaya, arinkayga ii hagaaji dhammaantiiba, naftaydana ilaah waa noo kala bixin waayo anigu waxba ma qabsan karo. waxaanu sheegay rasuulku calayh salaatu wasalaam dikriga iyo xuska noocaasi inuu yahay ka addoonka ka saaraya xaaladaha adag ee uu ku jiro. waa raaxada qalbiga iyo indhadoogsiga muuminka dikriga ilaahay subxaana wa tacaala oo noloshu u dhadhami mayso qofka haddii xuska ilaahay subxaana wa tacaala uu ka maqan yahay. ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu inagu daro kuwa garta xaqa ilaahay subxaana wa tacaala kana soo baxa wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala u diray. ilaahayna subxaana wa tacaala sida ay tahay ugu mahadnaqa. wallahu aclam. salى اllahu calى nabiyina maxamed. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق